waxaanu joognaa degmada Garadag gaar ahaan deegaanka Fadhigaab oo aanu guud ahaan degmada Garadag maanta ka qaybin doono raashin dhan 330 qoys ay soo bixisay dawladda Sacuudiga gaar ahaan King Salman deeqda raashinka waxa soo gaarsiiyay hay'adda u diyaar garowga aafooyinka Soomaaliland ee Natford marka maanta waxaanu ka qaybinaynaa degmadan ama tuuladan Fadhigaab 130 qoys oo la siin doono dadka jilicdasan ama ay saameeyaan abaaruhu marka waanu qaybinay si qurux badan dadkiina loo soo gudbiyay waan u gaarsiinay aad bay u mahadsan yihiin dadka deegaanka oo ay nagala joogaan gudoomiyihii kusimihii degmada Garadag waxaanu ka qaybin doonaa 3 goobood oo kala ah Fadhigaab oo 130 qoys ah karasharka Garadag oo aanu ka qaybin doono isna 100 qoys iyo tuulada Cilcadde ama deegaanka Cilcadde isagana aanu ka qaybin doono 100 qoys bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore ilaahay baa mahadle suurta galay maanta inaan hadda aanu halkan ku qaybino raashinka 130 qoys oo aanu qaryada Fadhigaab inaanu ku qaybino oo ay soo gaarsiiyeen hay'adda Sacuudiyaanka iyo dawladda hadda ku reegarwadeenkii ka waxay soo gaarsiiyeen 130 qoys oo dadka danyarta ee jilicsan loogu talagalay ee abaaru naafayeen haddana waayeelkiina waanu ka gudoonay waanu u qaybinay si wanaagsan oo sharaf leh ayay u qabaan ugu qaybinay ilaahay baana mahadle inta ka bacdi waxaanu ka codsanaynaa wasaaradda iyo dalab ku ruuxay hay'adaha khayriga ay ku shaqaleen arrimahan abaaraha ama naafay dadka ay naafayeen waxaan leenahay ilaa 1 qoys baa degan qaryadan waxaan u gaarayaa arrimo si faa'iideysanana inay dalab ku ruuxay hoos ahaan loo eego way dalka abaaraha ka dhacay waxaan ku raadaa dad jilicsankii iyo wacyiga baa ku adkaaday ilaahayna waxaan uga baryanaa inuu soo dhaxmariyo wax khayr loo soo dhaxmariyo aan fidmo ku abuurin yaanu ilaahay uga baryanaa nimadan hawlwadeennada ah soo gaarsiiyay hay'adda ka shaqeynaya iyo intiina soo gaarsiinay mid walba oo mahadnaqana khayr baan idin rajaynayaa waan salaamana marka labaad waxaanu u mahad celinaynaa dadkiina soo gaarsiiyay raashinkan oo ka kooban 120 qoys 130 qoys raashinkaas oo ka kooban Fadhigaab 130 qoys aad baanu ugu mahadnaqaynaa waxa weeyaan waxaanuna leenahay waad ku mahadsantihiin hay'adda diyaar garowga aafooyinka Somaliland iyo maxaan raahdaa Sacuudiga oo raashinkaas noogu yimi Salmaan waliba aad baanu iyagana ugu mahadnaqaynaa hawlwadeennada hawsha ka shaqeeyay sida fiican noo soo gaarsiiyay iyaguna waa mahadsan yihiin dadkana waxaanu leenahay ka qayb qaata sida dadku ay uga qayb qaateen uga qayb qaata magaaladu waa magaalo weyn dad badan baa ku dayacan xoolihii ay kaga baxeen intani waa intii noogu soo horeysay waxaanu jecel lahay inaanay magaalada iyo dadka jilicsan aanay ka goyn xildhibaanadana fariin baanu u diraynaa deegaanka iyagoo waxaanu leenahay dhulkani waa deegaankii aad ka soo baxdeen ee codka leedinka siiyay waxaanuba isniritow madabada wada qabteen waxa loo baahan yahay dalkiina iyo dadkiina inaad ku soo noqotaan inaad indhaysaan inaad dhulka jilicsan iyo dadka jilicsan ba aad ogaataan aad baanu aanu diin salaamayna